kadib markii 17 bishan Abriil ee 2017 dooni sideed dad qaxoonti oo gaaraya 80 qof oo Soomaaliya ay diyaaradii ku duqeysay badda Yemen ayaa waxa markii ugu horeysay saxaafadda la hadlay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday duqeyntaasi oo qaarkood lagu dabiibayo cisbitaallo iyo goobo lagu xanaaneynayo oo ku yaala dalkaasi Yemen. Ilaahay ma iska leh wax kasta nagu dhacay imika dawladdan Yemen iyo hay'adda UN si fiican inoo soo dhaweeyeen intii dhaawac ahayd way soo qaadeen halkan ay keeneen anigana lugtay waxaan go'ay habeenkii waxa iga jiray qori weyn qoriga gacanta lagu qaado bana lagu soo riday inaan kala lugtay goysay aniga way goysay gabadh gacanta jirtay dad fara badan meesha waa ku dhinteen wixii meeyahaana way gureen wixii dhaawac ahaana way soo qaadeen halkan ay keeneen maanta dadka iyagii dhanay asxaabtayadii ummadayadii dhanay wax nool ma jirto in yar baan ku noolnahay bacdeen ummadii dhanada nala rafiiqayda nala socotay barti baa lagu laayay iyagoo aan waxba galabsan maanta waxaan ku noo habluha dhintay adigu waa ilaa 17 hablood ee xurmooyin rag garjaarinta dhintay kaasoo dhibaato badan laga kulantay gabadhaydii aan ku waayay saaxiibadii aan ku waayay saxibna loo garaacay dhibaato aan la soo koobi karin ugu sameeyay naxariis darra Allah u naxariistay dadka ku dhintay duqeyntaasi oo gaaraya 30 qof ayaa u badnaa dhalinyaro ka kala yimid magaalooyinka Laascaanood iyo Burco waxaana qaar ka mid ah waalidiinta dhalay dadkii saarnaa doonida ay si murugo leh uga warbixiyeen goortii ugu dambeysay dadkooda iyo halkii ay ku dambeeyeen markii la duqeeyay kadib waxaan ahay Xafsa Cumar igoori hooyadeed baan ahay Xafsa Cumar igoori halkan waxay iga tagtay subax jimcaad bishii labaad 10keedii bay ku aadanayd markii aan ka war helay macnaa in badan baan ka war la'aa adigu 12 bari ayaan ka war la'aa markaa Yemen bay la soo hadashay markaan 12 bari ka war la'aa ilaahay waxaan ka baryaa inuu jannada nagu kulmiyo insha Allah biidnillah ilaahay baan ka baryaa ilaahay waxaan ka baryaa mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay waxaan ka baryaa inuu jannada nagu kulmiyo ani Xafsa way tahriibtay Yemen ayaa la igu sheegay inay gaadhay doontii ay raacday khamiistii baxday ayaa lala bartilmaameedsaday hub lala bartilmaameedsaday gabadhaasi waa la soo xaqiijiyay isla jimcihii baa la soo xaqiijiyay inay dhimatay dadkii ugu geerida ugu horeeyeen ay ahayd Laascaanood waxay ka baxday bil bay ka sii maqan tahay in yar ayay sii joogtay Boosaaso waxaan ugu baaqaynaa inay xuquuqdii noo raadiso dadka iyaga halka ku dhamaaday Soomaalinimo Muslimnimo si kastaba dadka Soomaaliyeed gabadhayada ka mid tahay inay xuquuqdina loo raadiyaan diyaar u nahay anigu waxaan dhalay ninka la yiraahdo Deeq Cali Deeq maaha Faarax Jaamac ana dhalay ninkaas wuxuu dambeeyay 7 nin uu u dambeeyaa sheerka ragiisa halkaas isku raacay kaasaana u dambeeyay cabashada baaqa waxaan u dirayaa wixii islaama inta badan dadka Soomaalida ee ku dhintay badaha ayaa u badan dhalinyaro Soomaaliyeed oo nolol iyo shaqo ka raadinaya wadamada Yurub kuwaasi oo maraya jid khatar ah oo bad iyo bariba leh balse wali ma jirto xal waara oo laga gaaray in la joojiyo dhalinyarada markasta ku basbeelaysa badaha shisheeye Xabiib Ciga Xasan Universal TV magaalada Burco